الله الرحمن الرحيم maantay waxa guuleystay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waxa laga guuleystay dawladihii shisheeye oo rabay ummadda shacabka Soomaaliyeed iyo dalka iyo diinta waxa uu danka ah in ay misleading ku sameeyaan ayaa laga hortagay ma aysan guuleysan baarlamaanka Soomaaliyeed ma uusan guuleysan farmaajo waxa guuleystay shacabka Soomaaliyeed iyo rabitaankoodii waxaan u hambalyeeynayaa madaxweynaha Soomaaliyeed oo guul la taaban karo maanta meeshan ka soo hoyay taas uu ku kasbaday rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay taageeraan oo ay madaxweynahooda garab istaagaan si dalkan musuqmaasuqii hareeyay 26 sano dhibaatadii baahidii baabi'i mushaar la'aanta ciidanka haysa si looga hortago wax kasta oo xasiloonida dalka dib u dhibi kara waxaa laga rabaa ummadda Soomaaliyeed in ay ulyadiir noqdaan in qabyaalada laga tago qarannimada loo istaago haddii ay tastaaso dhicin waxa imaan doonta waxyaabuhu cadawga damacsan yihiin maanta halkan gabran waxaan ku iri dalkan waxa iskala Soomaali go'aankana waxa gaaray Soomaali danaha Itoobiya iyo danaha shisheeye dalkan kama shaqeeyaan wallahi thumma wallahi konton qof oo Soomaaliya 100 qof ayaa ag taagneed dad ayaa iga dhiciyay yiraahdeen wax uu ku jawaabo waa aqoon waaye markii madaxweynaha la doortay 184 cod uu helay gabar uu ka soo baxay qolka taas waxay ka turjumaysaa in aan ka reyn karno cadawga Soomaaliyeed Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo